inankii dirwal inankii soo qaaday hoteelka iga soo qaaday miyuu jooga talo ya inankii miyuu jooga ayaanu soo sheekaysanay maanta ay suuqayo horeysay inanka Fariida marka hadalkii uu markiiba uu noo durkay hadalku marka waxaan ku yidhi anigu kolka waan joogaa da ya aan waxoogaa iska yar fasax qaatoon iska hadlade waan joogaa kolka soo aad garamaysta oo daada waxoogaa license-ka waxoogaa ku siinaysa inaad iska yar hadasho ya oo xishoodkii inankan yara bal naga amstay wixii way dhamaatay dawada weyn baan kolka soo aad garamaysta so I like to tell the truth as much as possible without disrespecting anybody waxaan ku yidhi dhowr amuurood oo foolxumo baan ku arkay anigu Soomaalida not individually the cultural wise aan ku arkay and you have touched one of them waxaan ku arkay dana dadku waa deeqsi oo haday wax arkaan dhibaataysan waa deeqsi way soo dhaqanka Soomaalida way leedahay islaamnimadana way ka timaadaa oo deeqsinimada islaamnimada waa xubin weyn bay ka tahay laakiin waxaan ku arkay inuu dadkeena hal isdaandamo waxaan ku arkay dad aan wax badan isku ogolayn shaarka ka wasakhay ya amba ku reebelay amba si kala noqotay laakiin waa shaarka ka wasakhay shaqadu ka wasakhay soo degay dumarkuna xaq dambe ha joogan waa naga aamusto dad aan waxba isku ogolayn dhaqankeena qayb caynkaas ku jirta ya soo degay waxaad arkaysaa xitaa fanaaniinteena arkaysa oo laba nin oo fanaaniin oo waaweyn amba la garoodo fanaaniin waaweyn oo kanad wada hebel ka warno kan ku ridaya oo waxba ma tumi karayo waxba ma garaaci karayo waxba ma garni kan kale aad u tagaysaa kan kale sidii koornay siyaasiyiintuna waa caynka waka waka pull down yes that's right so taasi way jirtaa anu waxaan eeg Mareykan waxaan ku arkay Mareykan cunsuriyadda way jirtaa dadka madow iyo magana dadka islaamka madow waa shaqadu way adag tahay laakiin waxaan ku arkay jaamacaddan joogan mathalkaasina sida lagugu haneynayay marka aad ka soo baxdo hawshaad ka soo baxdo lagugu haneynayo jaamacaddeedu waxa weeye da'deedu sanadkan waa 150 sanadood bay ku dhowday Mareykan waa wadan yar oo 1776 baa gobonimo la qaatay marka 150 years waxay la mid tahay 350 years halkan oo kale yaa la abuuray jaamacadda waa private university waa ku fiicanaan halku ka soo baxay iyo Humphrey halku macalinka ka ahaan jiray Watermonde halku ka soo baxay weligeedii aan la hednin madoobi ya professor buuxana kama noqon diinna kama noqon waa badde laba isa saarantay adoo professor buuxo diinna ka noqon weligeedii aan la kama intee ina samatoro gibl ka mid baa yimid hadda balaaga imtixaankii baan galnay ya 177 applicants baan markii diinka la qoranay wadii wax lagu soo qoraya de jaraa'idka wadii shaqada caynkaas ay jirta waa national search baa la yiraahdaa intiina wad garanaysan jaamacada national search Mareykan oo dhan 177 maan ku soo gal kolbayn baa la reebaya aniga iyo nin generaala saddex xidigood leh oo retirement galay early retirement jaamacadda la yiraahdo Johns Hopkins one of the biggest universities in the United States PhD international affairs kaga soo qaatay labadaas isku soo hartay ya 16 sanadood iga daaweyn isku soo hartay waa nin cad oo kristaana oo meesha u dhashay wadanka u dhashay dadka iskale aad wad garanaysan you know the racism business wad garanaysan so adamad I won out of 177 haddii la leeyahay dii la isreebayay ya beri hore albaabka ma kamaan soo galeen soo adeegmayst kolka inaan wax isku ogolaano ayaa loo baahan yahay saaxiibayaal in wax isku ogolaano oo la kala dambeeyo ayaa loo baahan yahay inantaas waxay samaysay waxaan Soomaali ka samayn England ay samaysay Mareykan kamaan aan samayn wali taas ayaan waxay samaysay soo adeegmayst ayaan hoos loo soo jiidinay خلاص سيدس